haddii aad haysto kaarkan haddana aad Soomaaliya joogto waxay ka dhigan tahay in isbitaal kasta oo aad tagto aan wax lacag lagu weydiinaynin abtiga safariga imaaday una baahnaa inaan dhakhtar geeyo anigana marxaladaas xilligaas aan wax lacag aan helin ayaan ugu faa'iiday markii ugu horeysay kaarka caafimaadka aan u isticmaalay yani ehelkaaga dadkaaga adiga ayaa tagaya wax lacag oo lagu weydiinayana ma jirto ayadoo aan ognahay duruufaha caafimaad iyo mid dhaqaale ee wadanka in aragtida xilligan ay ku soo aado waxa waaye wax aad u mudan in la bogaadiyo yani waa lagu soo daweynayaa inta ka baxaysa waa la yaabantaa Soomaha waliba marka la kugu celinaya waa haddii aad Soomaaliya joogto hadda waxaad isweydiinaysaa sidee ku dhici kartaa anoo Soomaaliya jooga ina kaar un kaliya dhiibto sida qof Yurub ama America jooga dabeedna qofkayga la ii soo daweeyo ee aan iska soo baxo way dhici kartaa kaarka magaciisa waxa la yiraahdaa Healthy Plus haddii aad haysto kaarkan haddana aad Soomaaliya joogto waxay ka dhigan tahay isbitaal kasta oo Soomaaliya ku yaala inaan lacag lagu weydiinaynin dalka Erdogan agaasima ka ah in laga hirgeliyo 3 bil ka hor adeegan oo runtii bukaano badan iyo dad badan ay ka faa'iideysteen bil walba bisha ka dambeysana nambarka uu sii badanayo bil bisha ka dambeysay tirada ay sii badanaysay haddii aad Soomaaliya joogto kaarkan aad haysato uma baahnaa doonto inaad isbitaal lacag ku bixiso ama saaxiibka wacdi aadahadiniyo qof isbitaal iga jire furdaaminiyo lacag soo dir asna ku dhaw warniyo bishan anayba kala bar iga jabanta saaxiib bishan kala bar maraysa ma baahnaa doonto laakiin maxaa laga rabaa su'aashaas weydiinayso waxa weeye maxaa la iga baahan yahay koow waa inaad shaqaale ahaataa shaqaalaha weynaha kala duwan ayagana waa ka faa'iideysan karaan adeegaas wax badan oo la tari karaa waa inaad ka mid tahay shaqaalaha ka shaqeeya Soomaaliya waa inaad heli karto aqoonsi shaqaalanimo ama sidoo kale damiin shaqaalanimo yani qof booskaaga ama shirkadda ka shaqeyso shaqaale nooc carabta ah ama shaqaale dawladeed ah ama shaqaale shacab ah kali waxa laga rabaa wax cadeyn kara inaad shaqaale tahay bismillaah magaciigu waxa waaye Xasan Xuseen Kaamil kana mid ah shaqaalaha wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada intaas bis ama soo wada booskaaga ama hadii la ku ma kaar aqoonsi oo shaqaalanimo la imo wax un cadeyn kara inaad shaqaale tahay baa laga baahan kadibna kaarkan ayaad helaysaa helitaanka kaarkani waa lacag la'aan inaad kaarkan soo qaadatid wax lacag oo laga rabaa ma jirto hadaba waxaad weydiinaysaa kaarkan muxuu i qabanaya waa ku sheegay isbitaal kasta lacag lagu weydiinay laakiin sidee wax jiraan wali waa su'aashaas weydiinaysaa ana ku sheegay kaarkani faa'iido kuwaad uu leeyahay weeye in isbitaalka aad tagto ee Soomaaliya ku yaal ilaa gobolka soo guur gobolka Muqdisho soo guur meel kale guur meesha rabta tag ama tusaale garow ka soo tag Muqdisho imaw lacag lagu weydiinaa si ku dhicay ana ku sheegay waa ku horta faa'iidaas uu leeyahay oo maxay adoo lacag haysan oo akoonkaaga lacag ku jira hadii qof ka xanuunsado kaarkaas aad taaganaysaa isagii lacag ka go'aysa isagana lagu daweynaya qodobka labaad waxa weeye boqolkiiba 20 discount ayaa ku jirta hadii $100 laga rabay $80 ay xisaabtaadi noqonaysaa $80 kaarkan ay ka go'aysa waan huba wali su'aal qabta su'aashaas oo ah lacagtan meeshan ka go'aysa aniga see ku bixinaya mahayada caalamiga maya lacagtan adiga ay ka go'aysa laakiin goonay ka go'aysa waa markii mushaarka uu ku soo dhaco qarashka wuxuu kaaga jarmaya hadba waxa laga jarayaa si bille qarashka ay isticmaashay sida aad u bixi karto adu muhiimadu waxa weeye waa muraabaxo caafimaad haddii arki jirtay computer muraabaxo ku soo qaadato miis iyo fadhi iyo adeeg aroos muraabaxo ku soo qaadato kan waa muraabaxadii caafimaadka maxaa sameynaysaa isbitaalka tagaysaa waa lagaaga soo daweynayaa si sharaf la lagu soo deynaya waa iska soo baxaysaa bish markuu mushaarkaaga ku soo dhaco ayaa tartiib isaga jaraysa ma intaas oo kaliya waa maya faa'iido kale si leeyahay wax weeye tusaale waxa caafimaadkaaga uu noqday caafimaad aan dalka waxba looga qaban karin caafimaad dibadda ayaan u baahan waxa lagu fududeynayaa marka kaarkan haysatid inaad hesho fiisayaasha dalka u socotid tusaale waxa u socota Turki tusaale waxa u socota Imaaraadka China India fiisaheedii ayaa lagu fududeynayaa waxa intaas ku sii dheer kaarkan haysatid isbitaalkii ku degi lahayd ama isbitaalkii xaaladda caafimaad la tacaali lahaa ayadana waa laga la sii ballamaya iyo sidoo kale waliba discount marka kaarkan marka haysatid waxa haysta xuquuq badan yani waxa la yiraahdaa shaqaalaha Soomaaliya xuquuq ma leh moogti shaqaalaha Soomaaliya xuquuq ma leh laakiin kaarkan wuxuu kamid yahay xuquuqaha caafimaad oo ay heli doonaan shaqaalaha Soomaaliya barnaamijkan waxa taabageliyay ganacsatada Soomaaliyeed iyadoo wasaaradda caafimaadkuna ay ku dhiirigelisay hawshan qiimaha badan iyo sharafta leh ee ummadda Soomaaliyeed haya waan rabnaa ku bogaadin haddaba su'aasha ugu dambaysa isweydiinaysa waxa weeye xagee ka helaya kaarkan laba qaab waa heli kartaa haddii aad buuxiso shuruudaha ah inaad shaqaale tahay oo aad aqoonsiga kaarka haysatid kaliya waxa tagaysaa xaruntooda oo ku taala horjeedka dekada ama lambaradan kor ku qoran ayaad kala xiriiri kartaa hadii intaas aadan awoodin su'aal aad kaarkii aqoonsiga haysan waxa jirta dad badan oo kambaniyada Soomaalida caadi ka shaqeeya laakiin aan haysan kaarkii shaqaalenimada haysan qofka manager kuwa ama shirkadda ka shaqeysa booskeeda baa loo diraya meesha isaga ayaa kaaga soo qaaday kaarka isaga ayaana ku soo damiinanay yani hatta wuxuu awoodaa in shaqaalihiisa oo dhan hal mar u dalbo inuu Healthy Plus la xiriiro ee yiraahdo intaasoo haba u baahanahay liisaska magacyada iyo gudbiyo iyo lambarada dabeedna sidaas loogu soo sameeyo isla xarunta loogu keeno marka maanta kadib saaxiibo uu isoo tuuro qof isbitaal iga jiray yeysan dhicin adigoo heli kara lacagtii laga sii dhiibo iyo discount lagu sameeyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.